الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه طيبين الظاهرين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. ولا ليال wax walba oo wanaag ah waa la isku sheegaa, xumaatadana waa la iska reebaa. waxaan maanta aan la hadlayaa ummadda degto gobolada dhexe. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. muuminiin buu ilaahay la hadlay, uu yidhi ilaahay ka cabsooda subxaanahu watacaala, si xaq oo dhab ahna ilaahay uga cabsooda casa wajalla. waxaan leeyahay dadka gobolada dhexe dego, war ilaahay ka cabsooda casa wajalla, ilaahayna ka yaaba. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: man ra'aa munkaran falyuqayir biyadih. qofkii munkar arkaa gacantiisa ha ku suuliyo. munkar aan laga aamusi karinna maanta wuxuu ah iga hadal siiyey. waxa weeye maanta waxa ka socda gobolada dhexe wax cadaalad ah ma aha. waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca iyo odayaasha gobolada dhexe dego, walaalayaalow cadaaladda ka shaqeeya. cadaaladdu waa wax shay aada u weyn wey. qof walba ummaddana mas-uul ka ah waxaa loo baahan yahay inuu cadaaladda ku dhaqmo. maanta waxaa ka socda gobolada dhexe cadaalad maahan. odayaashu waxay sameynayaan cadaalad maahan. madaxweynaha wuxuu sameynaya cadaalad maahan. runta marka loo laabto, waxa weeye 7 sano dadkii waddan soo xukumayay gobolada dhexe oo ummadda hadda odayaasha meesha ku wada shirayo dhiigoodii badbaadiyey oo in la gowraca ka badbaadiyey in maanta la tuuro. way maanta wuxuu ahay dowladdii iyo wuxuu ahay odayaashan waxaan leeyahay war walaalayaalow lacag faa'iido ma laha. dadkii diin idinku difaacay oo ilaahay dartiis idinku difaacay inta aa ka tagteen boorso lacag inaa ka dowratiin. walaalayaalow ilaahay ka cabsooda subxaanahu watacaala. odayaasha haddii waxa waaye dad odayaala oo waxgarad ah haddii aad tihidiin, lacag iyo diin layskuma doorsado. walaa tashtaruu biaayaatillaahi samanan qaliila. waa aayad qur-aan. laguma doorsan karo waxa waa diinta nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh xoogaay lacag ah oo ilmahaada ku biilatid. laguma doorsan karo diinta nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh. waxaan leeyahay odayaasha gobolada dhexe oo hadda maanta cadaado fadhiyo oo shirka cadaado u fadhiyo, waxaan leeyahay walaalayaalow diintiini ma lacag baa ku doorsateen. madaxweynaha soomaaliyana waxaan leeyahay madaxweynuhu waxaa hadda meesha ka socdo cadaalad maahane, culummadii waddankii inaad xaqirtid oo aa odayaal meesha iskugu keentid oo aad tidhaahda dadkii gobolada dhexaban wuxuu ay meesha ku shirayo. culummadii waddanka oo diintan usoo halgamay oo dadkan dhiigoodii badbaadiyey oo khawaarij ka badbaadiyena aad xaqirtid, dee cadaalad maahan ayaduna. waxaan leeyahay marka madaxweyne waxa waaye hadalkaada dib ugu laabo. dadkaa meesha iskugu keentay fiiri. annaga ma doonayno dowlad khawaarij, waxaynu nahay ahlu sunna waljamaaca. waxaa rabnaa nabad iyo diin inaan isku helno iyo waddankeena inaan isku helno. ma ahane in la yidhaahdo waxa waaye odayaal iyo qabyaalad iyo quran inta la keeno dadkii qabyaalad isku diraan. ilaa hadda wuxuu ahay shirki wax ka soo baxay mala. waxaa la isku haystaa reer hebel. anigoo reer hebel ah ma intaan baa laysii karaa. anigoo reer hebel ah ma intaan baa laysii karaa. meeqa xildhibaana meesha ku leeyahay. war waxaas nolol ma ahan. nolosha xaqiiqada waxa weeye inaan ku dhaqannaa waddadii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh. nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: man ra'aa munkaran falyuqayir biyadih. qofkii munkar arkaa waa inuu gacantiisa ku suuliyaa buu nabigu yiri salawatu. faman lam yastadi, hadduuna awoodin inuu gacantiisa munkarkii ku suuliyo, muxuu samaynayaa? fabilisaani, waa inuu hadlaa, carabka ka hadlaa.
هدون أول فبقلبه قلبه هو إنه كنع منكر وذلك أضعف الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانك ماشي ضعيف سنوي قلبه ولا غنع منكر marka waxa weey inaan ka hadalna hadalkan dantaan ugu qasbayso walaalayaal waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya dib ha ugu laabato shirka ay meesha ku qabatay oo culimadii wadanka ay ka maqan yihiin walaalayaal shirkaas waxa waaye shir loo wada dhan yahay maahan madaxweynaha waxaan leeyahay dib u eg shirka maamul sameynta gobolada dhexe dib u eg dadkii dhiigoodii meesha ku soo baxay oo diintoodii iyo dadkoodii difaacay maanta in waxa la yiraahdo shir korkooda in maamul laga sameeyo asigoo maamul jiro waxa waaye cadaalad daro weey waxaas waxaan leeyahay marka madaxweyne dib isku laabo mid kale odayaasha waxa dhibaato haysta waxa weey boorsada lacagta hadda dhamaanaysaa waryaa idin difaacay oo qawaarij idin ka difaacay al-shabaab afarta jaha Soomaaliya ee joogtay hadda hadday meesha imaatay idin difaacay waa ahlu sunna wal jamaa qol kale ma haysatiin marka waxa way culimadiina xaqirinina boorso lacagna ha ka doorsanina hadalkay intaasaan ku soo gabagabeynaya aqulu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh